بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأحمد إبراهيم يوسف من نجاد وإذا كسر شيئين يا برنامج شيء تحناها تيفيك بدعس برنامج كان أسبوعا إن شاء الله تعالى ونقصو قادم دونا وحيالها قف بني آدم كاي كقولي سكروا فرها جوش نقان كلام بني آدم كونن nolol kasta wuxuu raadinayaa inuu guuleysto oo noloshiisa guul ka gaaro marka insha Allah taala waxaan halka ku tilmaami doonaa talaabooyin kooban oo bini aadamku ku guuleysan karo furaha guushan u noqon karta Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka ugu horeysa guushu waa qof bini aadamka inuu gaaro hadaf cayiman oo higsanayo wuxuu jecel yahay qof bini aadamka uu doonayo inuu gaaro oo ka xaqiijiyo ayaa guul la yiraahdaa waxa jeceshahay ee doonaysay ee hamigaaga higsigaaga wahaa inaad gaadhid ayaa noqonaysaa guul مثلا imtixaankii shahaadiga ahaa ayaad gaadhay oo gashay darajo fiican oo ku baastay higsigaaga iyo hadafkaaga ba noqotay jaamacaddii first degree waad qaadatay waa guul bal oranayaa shaqo fiican waad niyeysanaysaad gaadhay marka hadafkaaga noqon karta guul daraduna waa opposite-keeda ama dhinaca kale waa hadaf ama higsi aad lahayd oo jeclay ayaad gaari weeyday ayaa guul darro leedahay guushu waxay ku xidhan tahay hadafka qofku bini'aadamka leeyahay hadafka iyo ficilka oo la yimaado qofka bini'aadamka ayaa ku xidhan tahay haddaad hadaf leedahay oo aanad ficil ku darin bee guuli ka dheer marka guushu waxay u baahan tahay qofka bini'aadamka inuu hadaf iyo higsiba yeesho marka ugu horeysa ayaa noqonaysaa guushu waxay leedahay talaabooyin lagu garan karo oo qof bini aadamka lagu gaari karo ama qodobo asaasi u ah ayaa guushu leedahay qodobada asaasiga oo guusha qofka bini aadamka ay ku guuleysan karo tusaale ahaan waxa kamid ah tirarka guusha waxa kamid ah qofka bini aadamka inuu daacad yahay daacadu Soomaalidu waa taada daacadi ma hungoodo waa tiirka koobaad ee guusha marka waa daacadnimada la marwana honest is the best policy waa leeyahay daacadnimadu waa siyaasadda ugu fiican daacadnimo hungooda leeyahay marka qofka binaadamka uu daacad yahay oo arinta daacad ka yahay oo uu wado ficilka iyo hadafka daacadnimo shaqadiisa daacadnimo ku wato waa qodob keenaya qof binaadamka inuu guuleysto guusha qodobka labaad ama tiirka labaad ee guusha waxa weeye qofku bini'aadamka inaad joojin shaqadiisa ama higsigiisa afcaashu ku gaarayo inaanu marna joojin ayaa muhiim ah yaani qofka altitude-kiisa iyo hadafkiisa uu wato inaanu marna ka niyad jabin joojin horusi wado waxa weeye haddii doonto sanad ku qaadato 2 sano ku qaadato 3 sano ku qaadato laakiin mar walba uu muuqato halkii uu socday weeye marka qodobka labaad ama tiirka labaad ee guushu waxa weeye qofku marna inaanu joojin waxa weeye ficilka iyo hamiga uu doonayo inuu ku dhabeeyo higsigiisa inuu ku dhabeeyo waxa weeye ama maaha inuu dhowr jeer ku dhaco hadduu dhowr jeer ku dhaco shaqadu doonaha ka qabto suu doonaha u qabto waxa muhiim ah qofka bini'aadamka inuu mar walba trying uu wado oo isku dayo waxa weeye marka dambe guuleysanaya Soomaalidu sida la sheego ninka leerka sameeyay Thomas waxaan ognahay intaas oo kuna jeer buu guul daraystay laakiin hadafkiisa waxa uu leeyahay laamad ifaya soo gaaro wuu la gaaray waan ognahay marka wixii lagu celceliyo ee laga daalin ee la joojin laga niyad jabin guul ay geysanayaan tiirka saddexaad guushu waa adkaysi qofku adkaysto oo dhabar adeego sidoo ku gaari lahaa hawsha ku gaari lahaa marka tiirka saddexaad guusha rugniga saddexaad ee guusha waxa weeye iyadoo adkaysatid oo dhabar adeegtin oo arinta aanad soo koobinayn aad u yeelatin ability awooddaadana aanad mar walba aanad joojin oo aanad niyad jabin oo mar walba ficilkan si aad ku waday aad ku sii wadid oo wax way adkaysi u yeelatin oo strong u noqotin oo awooddaad isticmaalaysin aanad marnaba aanad joojin ba muhiim ah
tiirka afraad guushu waxa weeye inuu qofku bini'aadanka aaminsan yahay naftiisa yani naftaada aaminsan tahay oo aad aaminsan tahay naftaada iyo aqoontaada iyo kartidaada inaad guul ku mid dhalin karaysid marka qodobka afraad tiirka afraad waxa weeye qofka bini'aadanka ee guul ku gaari kara waxa weeye inuu qofku naftiisa believe in yourself aad naftaada aaminsan tahay oo aad leedahay adigu waxaad gaari kartaa guul ayaad gaari kartaa marka waa qodobka afraad ee aad leedahay cid kale kuma gaartin marka qodobka afraad ee qofka bini'aadanka ee guusha ku gaari karo weeye afartaa tiir ayaa ugu waaweyn oo walba adduunka tiirar bay leeyihiin onogno gurigu tiir buu leeyahay tiirarkaas waa waxa haya marka intaanan u dhaadhicin oo ka hadlin sidee qofku guushiisa ku gaari karaa marka hore waan isweydiinaa tiirarka maxay yihiin waxaan ka dhawaajinaa afar tiir oo kii koobaad aynu waa daacadnimo kii labaadna inuu qofka bini'aadanka ka fakaro oo waxa weeye dhinaca wanaagsan ka fakaro oo aanu marna joojin hawshii iyo shaqadii aanu joojin saddexaadna waxaan u sheegnay inuu qofku adkaysi u yeesho ka afraadna inaanu marnaba u aaminsan yahay naftiisa uu meel ku gaari karo afartaa qodob waa afartaa asaaska u ah guusha ee qof kasta bini'aadani asaas u ah intaanu guushi gaarin oo inuu afartaa horta sii taagaa oo daacadnimo meel gartaa oo waxa weeye shaqadii wadaa oo adkaysi u yeeshaa oo naftiisa aamina afartaa tiir markaad guriga u taagtin guri adag oo afar tiir leh ayuu noqonayaa insha allahu tacaala waxaynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa 9 qodob oo qofka bini'aadanka noloshiisa guul ku gaari karo hisigiisa iyo hamigiisana uu ku dhabeyn karo marka laga yimaado afartii qodob aanu sheegnay waxaanu sheegi doonaa afartii tiir ee qofka bini'aadanka guul ku gaarayay ayaa afartaas oo haayeen hadda waxaanu tilmaami doonaa insha allahu tacaala 9 qodob oo qofka bini'aadanka noloshiisa guul ku gaari karo naftiisana kaga bedeli karo inkastoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaro haddana waxa muhiim ah qofka 9 qodob ka weelayo oo 9 qodob qabto oo 9 qodob isticmaalo dhamaanteen wax badan oo higsanaynay hadaf badan aanu lahayn ayaa suurtagal ah inuu qofka bini'aadanka ku gaaro oo ay noqoto meel fiican waxaanu wada ogsoonaa qof kasta bini'aadani wuxuu aaminsan yahay uu jecel yahay inuu guuleysto oo nolosha meel fiican ka gaaro oo dream buu leeyahay laakiin dreamkiisu wax u baahan yahay inuu talaabooyin iyo wadeeqo loo maro oo helo oo uu fahmo marka talaabooyinkan uu tilmaami doonaa iyo qodobadan kooban tilmaami doonaa waxaan jeedin doonaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta baa joogteen caalamka meel kasta ka joogeen ee barnaamijkan ku xirani inay talaabooyinkan aanu sheegnay iyo kuwa soo socda aanu sheegi doono insha Allah inuu wada weelano si aynu guul u wada gaarno guushiinu waa guusheeduna waa guushiinii marka 9 qodob ee qofka bini'aadanka noloshiisa ku gaari karo waxa kamid ah waxbarashada qodobka koobaad ee asaaska waa guusha waxbarashada furuuq yaqaan ayaa muhiim ah aqoontu nooca doonta baha ahaatee waa asaas ah aqoonta koobaad waa aqoonta diiniga san la socono marka aqoonta diiniga marka hore la marwana waajib علينا inuu waanaka nafteena maadiga inuu barano skillski barano xirfadii barano aqoontu waa keega ama furaha koobaad ee guul inuu ku gaari karo waa qodobka koobaad weeye ee qofka bini'aadanka ay ku guuleysan karo aqoontu qofka bini'aadanka san la socono waxay keentaa value iyo qiime keentaa qof aqoon tale iyo qof aan aqoon talahayn isku mid maaha Ilaahay waa Quraanka subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri qul hal yastawi alladheena ya'lamuuna wal ladheena la ya'lamuun isku level maaha levelhood kinolosha isku maaha isku economic maaha isku stats iyo maaha isku shaqo maaha isku karti maaha marka qofka aqoon tale qofka aqoon tale ka duwan yahay mustawiisa iyo life standardkiisa iyo sidoo fakarayo ka duwan ka sareeya qof aan aqoon lahayn
qofka aqoonta wuxuu ka sareeyaa qofka aan aqoonta lahayn qodobka koowaad daawada ugu guuleysan karayaan haweeye qofka bini'aadamka inuu barto aqoonta uu barto tii waajibka ahayd farducaynka ahayd iyo tii fardul kifaaya ahayd labadaba inuu barto waxa weeye si uu guuleysto oo guushan ka hadlaynaa maaha adduunyada kaliya ee if iyo aakhiraba insha Allah weyn way ku jirtaa marka aqoontaas qofka waxay keenaysaa inuu noloshiisii change ku yimaado oo isbedel ku yimaado oo uu soo fakarayay isbedelo sidoo wuxuu qabanayay isbedesho dhaqaaluhu helayay isbedesho bulshada cid xiriirka la isbedesho marka aqoontu waa kanzun la yafna waa waxaan dhamaanin weeyeen waxa la yiraahdaa qofka aqoonyahanka iyo qofka aan aqoonta lahayn way kala duwan yihiin inaad ilaahay baa quraan ku sheegay aqoonyahanku marna ma kaco meherad kacday aqoonyahanku maaha mar walba aqoontu way sareysaa mar walba waxa kaca oo nolosha la challenge ku yimaada oo mushkilad badan ku timaada kaan aqoonta lahayn ka aqoonyahanku aqoontiisa dawuu wala dhintaa laga yaabaa ama dadku gaarsiiyaa ka faa'iideysta marka daawada barnaamijka qodobka koobaad ee qofka bini'aadamka iyo noloshiisa guul ku xaqiijin karo waxa muhiim ah inuu barto oo through study and experience khibrad badan la yimaado aanu joojin mar walba waxbarashada iyo aqoontii waa wadada koobaad ee qofku ku guuleysan karayo wadada labaad ee qofku ku guuleysan karayo sagaalkii qodob aynu tilmaami doono waxa weeye waa skills in xirfad yeesho xirfadu waa muhiim waxa bulshadu waa locked waxa xirantay bulshadu waana peer group qof qolo ay ku xiranta group ku xiran yahay wuxuu ugu xidhan yahay waa standardka aqooneed weeye skills marka aqoontu iyo xirfadu waa waxa muhiimka qofku inuu xirfad gaar ah yeesho xirfadda gaar waxay keenaysaa in lagu baahdo oo dadku ay ku baahdaan oo dadna u shaqaysid oo dibadna soo saartin taasuna noloshaadii ee guul gaarsiiso xirfadda waa muhiim in qofku xirfad gaar ah oo unique skills u helo waa muhiim sidoo baahi badan oo waddanka jirta u daboolo isaguna naftiisa iyo duruuftiisana uga faa'iideeyo marka waxa muhiim ah dadku ama wadamada horumarada adduunka maraya people have different skills and experience dadku khibrad kala duwan bay leeyihiin beelkuma wada dhamaadaan oo wax kaliya ma wada bartaan dadku criteria iyo xirfad kala duwan bay leeyihiin qofku inuu xirfad labaad yeesho oo xirfado kala duwan yeesho ayaa muhiim ah dadkana loo train-gareeyo skills kala duwan say baahida kala duwan ee bulshada u daboolaan naftoodana ay guul ku gaaraan ayaa muhiim ah qodobka saddexaad daawade iyo qofka bini'aadamka ku guuleysan karayo noloshiisa isbedel ku keenin karayo waxa ka mid ah tusaale ahaan inuu qofku bini'aadamka bulshada la xiriiro oo contact badan sameeyo xiriir bulsho u sameeyo waxa weeye bulsho fara badan ku xidhnaado network ku jiray shabakad dadka jecel inuu hamigiisa eegsigiisa jecel uu la rafiiqo oo qof walba ku xidhanta cid ku xidhan yahay peer group ku xidhan tahay cid ku xidhan tahay haddii dad low mining ah oo saxago ka fikirayeen dadaan jecel guushaada iyo aan jeclay dad ku xidhan tahay waxba ku nacsinayaan waxba ku neecibinayaan waqtiga ka qaadayaan marka waxa muhiim ah inaad contact fiican samaysatin cid fiican oo wanaagsan ku xinaatin waxa weeye dad badan oo jecel inaad guuleysatid aad ku jirtin marka qodobka saddexaad ee qofka bini'aadamku ku guuleysanaya waxa weeye cidaad ku xirantay weeye qofka bini'aadamku inuu cid fiican ku xidhnaado aqli badan oo asxaab fiican yeesho nabiga cali salaam ku hadlay qof walba isagoo qofku saaxiib ka dhiganayo qofkaas uu bedelaya haddii qof wanaagsan yahayna 40 yooman 40 cisho gudahood yaad qof wanaagsan ku noqonaysa haddii ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii qof xun yahayna within the 40 days 40 cisho gudahood baa laga yaabaa inaad isbedeshin ka environmental change environmental behavior saameyn buu ku leeyahay ka qof walba iska ilaaliyo cid ku xidhan yahay shabakad fiican samayso group fiican samayso dadka jecel inaad horumar gaadhid ku xidhnow dadkaas waxay keenayaan inaad guul gaadhin oo aad goodid qodobka saddexaadna waxa weeye qofka bini'aadamka ee ku guuleysan karayo waxa weeye inuu cid ku xidhan yahay ay ku xidhanta marka inaad dad fiican ku xidhnaatin oo jecel ku caawinaya kula shaqeynaya
kula talinaya fikirkaaga dhabaynaya dadku xunaan tahay guulaysan karaysaa iska ilaali dadka aan fikirkaaga ka soo horjeeda dadka ama shaqaysta ah dadka aan horumarka jeclayn dadkaas oo ka fogow raadi la xidhiidh la majaalis ahlul aqliga ahlul cilmiga dadka fiican ee wanaagsan ee wanaagga jecel halka jaanis fiican baa kugu jira talo ku siin karaa aqaalu ka ku saacidi karaa fursad shaqo iyo dahabi ku siin karaa ka cid dadku xidhan tahay waxay ka mid tahay waxyaalaha furaha guusha ku kala karta qodobkeena afraad ee daawada ee qof bin aadamkii guul ku gaari karo waxa ka mid ah dhaqaalaha qof dhaqaalaha helo capital helo ama money oo helo waa qodobka afraad ee keenay guusha ogow dhaqaaluhu maaha faras second ma third ma kaalinta afraad iyo ku jira kaalinta afraad ee dhaqaalaha ku jira waxaanu niri qodobkii koowaad ee guusha waxa weeye waxbarashada dhaqaalaha ma qodobkii labaad ee guusha waxa weeye qof xirfad yeesho oo yaan waxbarashada oo simanaysa qodobkii saddexaadna waxa niri qof cidii ku xiran yahay weeye hadayru yadiru macdayr shakli balada shibarba shimarkiis ayuu la doonaa dad wanaagsan tahay cid wanaagsan doono sad u si wanaagsanaad qodobka afraad weeye dhaqaalo ka dhaqaalaha waa laga horeeya priority ka maaha first priority maaha second priority maaha third priority maaha waa kaalinta afraad weeye dhaqaalo marka qofka bini'aadanka inuu dhaqaalo waxa weeye waa kaalinta afraad ee ku guuleysan kara weeye marka dhaqaale ishin taani safar badan waa doonaysid oo adeegsanaysid ayaad ka faa'iideysan kartaa opportunities fara badan oo ku muuqda waad marka hore tahli karayn ayaa laga yaabaa inaad si degdeg aad uga faa'iideystid oo guusha ku gaadhin dad masaakiin aragtay inaad caawisid oo aad marka hore dhaqaale u hayn waa guul inaad masaakiinta doonaysaa inaad soo xajisaa doonaysaa inaad islaamka caawisaa doonaysaa inaad naftaada iyo ehelkaaga xukmada ka bedeshaa doonaysaa all these things ka soo dhamaantood waxa weeye kaalinta afraad dhaqaale weeye kii koobaadna maaha kii afraadna kii labaadna maaha kii saddexaadna maaha waa kaalinta afraad ee qofka bini'aadanka uu ku guuleysan karayo kaalinta shanaad ee qofka bini'aadanka uu ku guuleysan karayo waxa weeye qofku inuu si fiican u shaqeeyo oo waxa weeye dabeecad fiican la yimaado akhlaaq wanaagsan la yimaado shaqadiisa si ugu habboon ee ugu wanaagsan ku guto shaqada marka sida ugu wanaagsan ku gudatid ay keenaysaa in aad dadalacdid wad meel fiican gaadhin marka inaad shaqadaada ka adkaatid oo shaqadaada si fiican gudatid waa qodob muhiim ah oo keeni kara inaad guuleysatid oo waxa weeye binaadku ku arkaan ciidad la shaqeynaysid waxa weeye aad noloshaadana guul badan ka gaadhin marka waa isna waa qodob muhiim ah waana qodobka shanaad dabciga aad ku shaqeynaysaa ciidad la shaqeynaysaa aad si fiican oo daacadnimo oo la kabaqa aad u sameeysid daawada qodobkeena lixaad ee barnaamijkan ku soo qaadan doono noqon kara qofka bini'aadanka in mar walba ka fikiro dhinaca wanaagsan fikirkaagu hadii wax lagu soo jeediyo wanaad u arag dhinaca xun wanaad u arag wanaad noqon wanaad always positive thinker noqotin wanaad always xagga wanaagsan ka fikirtin oo walba aragtida u qaadatin inay wanaagsanaan doonto oo bari ay maanta ka wanaagsan jirto marka inaad xagga fiican ka fikirtin fikirka fiicanina qofka wuxuu keenayaa inuu morally u waag dhisnaado oo matalan uu xaggan ka fiicnaado qalbiyan hadduu qofku moralkiisu fiican yahayna waxay keenaysaa inay power bay ku siinaysaa awooddaas waxay keenaysaa iyo karti iyo energy tamar inaad dabadnaad waxaagii qabsan kartin waad marka always noqo positive thinker noqo inaad altitude-kaagu positive mental attitude aad noqotid oo dhinacii wanaagsanaa aad mar walba wax ka eegtid hawl walbaad qabanaysid aad u eegtid dhinacii wanaagsanaa oo dhinaca wanaagsan inta badan aad wax ka jilcilid qodobka lixaadna waa qodobka toddobaad ee guusha qofka bini'aadamka ku guuleysan karo waxa ka mid ah tusaale ahaan inaad waxa weeye positive image fiican adiga laga aamino sawir fiican dadku aaminsan yihiin oo dadka doonaysan la shaqeysin dadka u aragtid guusha bulshadu ay si fiican ku aragto ka aaminsantahay perception-ka iyo bulshada ay ka aaminsantahay u noqdo wax wanaagsan haddii wax wanaagsan laga aamino waxay keenaysaa inaad guuleysatid oo matalan dadku ay fikir fiican ka qabaan si fiican ku aaminsan yihiin marka ay wax badan ku fududaadaan waad guushi
aad gaadhid marka always waxa weeye inaad marka dhinaca wanaagsan iyo image fiican laga arko oo si fiican aad u fakartin oo sawir fiican laga aaminsan yahay waxay ku xidhan tahay habdhaqankaaga waxay ku xidhan tahay habdhaqankaaga ka hadalkaaga ku xidhan tahay tusaale ahaan formalka informal ku xidhan tahay labiskaaga iyo saad u hadlaysid iyo cidaad ku xidhan tahay iyo aqoontaada waxaasoo dhan keenayaan image fiican in laga dareemo sawir fiican laga qaato sawirka fiicanina wuxuu keenayaa in noloshaadii wax badan lagu fududeeyo oo aad ku guulaysid taawad qodobkeena sideedaad ee qofka bini aadanka ku guulaysan kara waxa kamid ah inuu qofku firfircoon la yimaado creativity la qof wax soo saaro qofku wax soo saaro wax soo saarka iyo fikirka cusub iyo aragtida cusub aan marna joojin mar walba joogka isku daydin inaad aragtiyo cusub shidii u soo jeedisin u soo kordhisin aad aragti fiican keentin oo haway aad dadaashin waad mar walba fikir cusub saliima waad bulshada u keentin wax cusub u keentin si dadkii dalkiiba uga faa'iideystaan fikirka cusubi adigana guul buu ku yahay bulshadaadina guul buu yahay marka qodobkii sideedaad guusha qodobka ugu dambeeya ee qofka bini aadamku ku guuleysanayo waxa kamid ah tusaale ahaan qofka bini aadamka inuu la yimaado astaamo fara badan characteristic tusaale ahaan astaamaha aan sheegi doono waxa kamid ah ee qodobka sagaalaad ku jira daacadnimada oo hore u sheegnay daacadnimo hungoodo Soomaalida hore u tii daacad qof walba markuu arko inaad daacad tahay wax badan ba qofka bini aadamka kula qabanaya akhlaaqiyadka wanaagsan ayaa iyadana kamid ah qodobka sagaalaad ku guda jira waxa kamid ah runta qofka run sheegay gaalo iyo islaam waxay isku aaminsan yihiin runta hadda run sheego waxa weeye shaqadaadina si yar oo fudud qabsanay si yar baad guushaad ku gaaray waxa weeye dadkuna ku aqbalayaan waxa weeye runtu waa arrin muhiim ah waana character muhiim ah qofka bini aadamka laga rabo inuu qorto diinteena meel bi ka istaagtay waxa weeye qof kasta oo la shaqeynaysaana baad run sheegtin Soomaaliya hore waxay jirtay runtu rag kama naxayso dad arrin ku dhacdin oo arrin ka qaldanto oo runta sheegtin war wahibalo waxa weeye waa runtii weey ka runtu iyo astaamaha noocaas oo kale ay keenayaan in dadkii iyo xiriirkii bulshadu ay ku wanaagsanaato oo ay noqonaato marka sagaalka qodob oo soo sheegnay waa sagaal qodob oo qofka bini aadanka ay ku gaari karayo guul ku gaari karayo noloshiisana wax badan ku gaari karayo marka waxaan barnaamijka soo gabagabeyn doonaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqbalo talooyin aan dadka soo jeedin doono waxaanu halku sheegnay maanta afar qodob oo tir dhaxad waa guusha waxaanu kala barnaamijkan soo qaadanay daawadayaal intaan ku guda jirnay sagaal qodob oo qofka bini aadanka furaha guusha way waxbarashada la marwan ka tahay xirfadu iyo xiriirka ciidad ku xidhan tahay sagaal qodob oo nooca aanu sheegnay iyo afar qodob oo tir dhaxad oo muhiim ah qofka soo daawanaya waxaan jecelahay inuu qodobada uu ka faa'iideysto si practical oo yimaado insha Allah ta'ala waxaan rajayn doonaa guul degdeg ah adduunyada iyo aakhirada qodobka labaad aan u soo jeedinayna waxa kamid ah qofka bini aadanka inuu wuxuu jecel yahay qabto talan waxa jeceshahay qabo si aad guul u gaadho kaynad ficil la timaadid ayaa muhiim ah oo waliba aad qabatid waxa jeceshahay qofku waa yartahay ama duuqa yarta qofku waxaanu jeclay inuu guul ka gaaro talan hadana waxa jeceshahay mid la waxbarashada iyo kale talan engineer ba jeceshahay computer IT ba jeceshahay inaad noqotid medicine baad gasho dhakhtarnimada ma jeclid laga yaabaa inaad markaa guul gaarin laakiin engineer hadda gashin way hobbigaaga tahay waxa weeye inaad waqti badan gelisid baa laga yaabaa dadna waa hobbigaagii dadna aad jeceshahay dadna exciting badan marka waxaan u soo jeedin doonaa qof kasta inuu waqtigiisa geliyo uga faa'iideysto wuxuu jecel yahay sidoo guul u gaaro waxa muhiim ah qodka la wadaagi doonaa qofku inaanu noloshiisa iyo isbarbar wado iyo higsigiisa matalan aan higsiga u go'in ama noloshaada kale aan u go'in laakiin mar walba aad balance gareysin noloshaadi
وهذا إلى السن ومهمة وهي هنسوي شيء أنا صدق كله وقف وقول كجارية ولا مروان إنه الدين تين حوجة صاروا وهو نلش قدام الدين تلا مرونا وهو كانوا الدين تين عبادة دين الصلاة دين وحصرا أن هرمر سنه حق إلهي سبحانه وتعالى كقول السنة نلول ونكسنا ونكون وضعنا هم يجي هكسس جينا ومهم برامج كان ما أنت تاسو